waadan salaamay akhyaarta waxaan gordhow aaday dalka Zambia waxaan rabaa inaan la wadaago arrin muhiim ah oo cajiib ah ku soo arkay dalkan hal habeen oo aan seexanay caasimadda Lusaka waxaan oga sii ambabaxnay tuulo yar oo ku taalo dhanka iyo waqooyiga waxaan u soconay inaan soo wareysano qaxooti muddo aad u fara badan halka ku noolaa oo ka kala yimid dalalka dariska sida Congo iyo Angola marka dhulka ay ku nool yihiin qaxootigan waxaa maamulo odaygan hadda aragtaan qayb weyn oo maaragtay dhul balaaran oo dadka meesha ku nool yihiin hoos yimaada asaga ayaa kaaba ka ah waa boqortooyo maaragtay isaga xukumo dhaqanka ayaana aad looga dambeeyaa dadka meesha ku nool waxay aad maaragtay u tixgeliyaan oday dhaqameedyada sida chiefkan oo kale dowladana way la shaqeeyaan dhulkan baaxadda weyn marka isaga ayaa maaragtay ugu deeqay qaxootiga inay ku noolaadaan ilaa qaarkood waxay deganaayeen 1960meeyadii marka waa dad maaragtay aad soo dhaweynta ugu fiican waxayna aaminsan yihiin dhaqankii hore iyo maaragtay gobonimada Afrikaanka iyo dhaqamadii hore soo jireenka ah intuusan gumeysiga iman waxyaabo badan ee dhaqanka Soomaaliga iskaga mid yihiin waan ku soo arkay marka waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo su'aal ah dhaqankii hore iyo maamulka casriga ah misla jaan qaadi karaan adigu maxay kula tahay